إمران وصهر لي horta adduunyadan been haddii la sheegayo at least been run u eg ayaa la sheegaa moogta laakiin beentan oo kale habartii dhasho ma arkin Imran Firi aniga interview السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي قيمة هي قدر انت نغا مدنو ميل كستو اضافه دونيدا كغا سوغنتين خيل كستين تابو وعنا وناكسن هذا تاي كلن كاغو ريد سو بقدا جنا كفرح قانيدي فضلها ما من سبسكرايب تو نو صارت سينا شير غريسو لايك تنا صارت markaad nuxurka hadalka soo bogatana fadlan halmaam inaad comment caafimaad qabo wixii fakarkaaga aad nugula soo wadaagto ayayo wixii cusub naga warayso waxaad maqashana ka fiirso arintii baraha bulshada ay sitay maalmihii la soo dhaafay sida weyn loo qaadaa dhigayay ayaa Imraan Qaraami iyo waliba Baas ayaa sheegay ahaba yaraatay inaanay jirin wax interview uu siiyay Laakaha media oo wada garanaysa Imraan Qaraami haddaba balaanini kala booxo Baas iyo hadalkiisa iyo sidoo uu dhignaa alxamdulillah walaalkay maanta afkaada waa qoyn waa hadli kartaa laakiin maalin waxaa jirta aan saan ahaan doonin maalintaas kulay Allah na gaarsiiyo insha Allah ta'ala Baas iyo sidoo uu dhignaaba wad soo wada dhageysateen Baas ayaa sheegay inaanay jirin wax interview uu bixiyay isagu walaw aanan hadaladiisa soo wada dhameystirin aan ka soo qaadanay haddaba Baas ayaa inta badan waxa uu ku hadlayay erayga Ingiriisiga kaasoo sheegay inaanay jirin wax interview uu la yeeshay haddaba waxa uu sheegay inuu hadallo ay markaa isweydaarsadeen baraha bulshada soo dhigay Imraan Qaraami kaasoo sheegay inuu interview ka qaaday haddaba ma jirto buu yiri sababa la xiriira geerida igu timi wax interview aan bixiyay haddaba hadduu Imraan Qaraami uu arinta daacad ka yahay sidii aan waraysiga iga qaaday ama aan wada hadlaynaa soo dhameystiro ayuu yiri waa sidoo uu Baas hadalka u dhigay Baas ayaa hadaladiisa ka dheehanayseen inuu wali walaaltinimada iyo wanaaga uu qadarinayo isagoo sheegay habeenna waa habeenna waa aakhiro haddii aad fiyus raadsanaysid siyaabo kale ayaa loo raadsaa laakiin looma soo bandhigo buu yiri waxyaabo khaldan kuwaasoo dadka lagu majahaabaabinayo waxa aad sheegtay buu yiri inaanu 4 qof ahayn oo waliba talada isku soo raacay 4 qof 3 waad sheegtay qofka afraadan waanu ka doonaynaa waanu kaaga fadhinaa buu yiri haddaba Baas ayaa arintiisa inta badan waxa uu ku hadlayay luqadda qalaad ee Ingiriisiga kaasoo uu sheegay waxyaabo fara badan oo aan halkan ku soo koobi karin haddaba Baas ayaa yiri waxaan sugaynaa in uu soo hadlo Imraan Qaraami Laakaha haddaba waxa uu sheegay inuu wax walba runta ka sheego sidii ay isu wareysteen ama hadalku u dhaxmaray inuu soo dhameystiro waayo waxa uu sheegay wasuud hadalka u dhigay Baas inuu hadalada soo jarjaray waliba in waxyaabo kale uu soo qaaday oo isaga hadalkiisa kamid ahaa haddaba Baas ayaa sheegay inaanay habo yaraatay wax interview dhameystiran uu ka qaaday aanay jirin isagoo ka cudur daartay geeri ku timi walaashii oo uu geeriyeysan yahay haddaba waxa uu sheegay dadkii uu soo magacaabay Imraan Qaraami iyo waliba qofka afraadna inuu keeno uu sheegay inuu Baas u sheegay Baas ayaa sheegay haba yaraatay inaanay jirin waxay ku soo qaadeen weerar muna iyo gurigeeda toona iyo heshiis ay u soo heshiiyeen saddexdooda qof Baas ayaa sheegay 3 qof halka uu Imraan Qaraamina sheegay 4 qof haddaba Baas ayaa isagu xaqiisa ku sii adkaysanayay inuu soo bandhigo waxyaabihii uu ka duubay ee uu ka rikogareeyay waayo muu soo dhameystirin buu yiri si daacadana uga muu soo hadline waxa uu soo qaatay hadallada in kamida haddaba waxa uu Baas yiri waxa jirta maalin aanad hadli karin maalin aanad doodi karin waayo wuxuu yiri waa maalinta dambe haddaba sidii Ilaahay kugu ogyahay waxba uma sheegin buu yiri balse wax been abuurayaad baraha bulshada isla soo taagtay kuwaas oo aad ku raadinaysa fayuus iyo waliba waxyaabo lamida haddaba
waxyaabo khaldan ha ku raadinin fayuus waayo waxa aad isticmaalaysaa waa baraha bulshada dayow badan ayaa siyaabo khaldan u qaadan kara hadallada aad soo dhigayso waxaanad ku raadinaysaa buu yiri inaad wax ka hesho balse waxa araana ha qaadanin وسيدو هذا الكودي بوس باس وحاوي بوس باس هذا الكصوت الدم يصير صوت الشرين ولبا وحيابيها كلا إنس ودارسني فرحة بدنانا صادق رعلي كمان هاي بيوانا كاجو عذر دارتين أنا واحد ترفيه كوسين كريم بل سوا محي سببتك أنت وحيقة ضبط ولبا صادق تو ولبا أنا رعلي كاهين أنا كونا فصحين إن صادق تبرها بالشدة محي كاجو بلانتا محي سكاجو بلانتا يتاسي haddaba dadka Soomaalida ayuu sheegay Baas sidoo hadalkiisa u dhigay inay jirto maalin dambe oo waliba isaga iyo Ilaahay ay is arki doonaan markaas uu ka jawaabi doono waxyaabaha xaqiiqada balse imika uu iska indha tirayo sidoo Baas hadalka u dhigay haddaba Baas ayaa hadalkiisa ku soo celcelinayay inuu xaqiiqada ka sheego wixii Ilaahay ku ogyaayna uu soo bandhigo waxyaabaha uu qarsoon ee uu ka duubay ee ay isweydaarsadeen oo waliba uu soo jarjarayna uu sida Ilaahay ku ogyahay uu soo bandhigo hadallada iyo waliba siyaabaha uu hadliyay Baas ayaa waxa hadalla xaqiiqada u dhow haddaba ma garan karna xaqiiqada ciidda sheegaysa haddaba Baas wuxuu yiri waxa jira hadalla badan aan isweydaarsanay hadallada ha soo dhamaystiro habeena waa aakhir ayuu yiri balse haddaad soo dhamaystiri weydo ama aad keen weydo cadaymaha waxa jirta maalin la kala bixi doono buu yiri sidoo uu hadalka u dhigay isagoo u jeeda waxa jirta yawmidiin waa maalinta dambe maalinta qiyaamaha halkaas oo aan qofna been sheegi karin haddaba Baas ayaa hadalladiisa mar walba ku soo celinayay inuu wixii Ilaahay ku ogyahay xaqiiqada uu ka hadlo Imraan Qaraami oo dadku wada garanayaan oo runta waliba looga bartay oo qof aad u wanaagsan ahaa ay dadku isweydiinayeen maxaa ku kaleefay in waxyaabo noocan oo kala soo galiyay baraha bulshada halka ay dadna leeyihiin waxa uu la safan yahay muna taageersan yahayna haddaba waxaan u sheegaynaa hadduu hadalkayagan maqla ama uu gaaro Imraan Qaraami waa la kamiriya inuu wax walba xaqiiqada ka sheego oo sida uu u sheegay walaalkeen Baas uu soo bandhigo waxyaabihii kale ee uu ka duubay ee aanu soo gelin YouTube-kiisa haddaba waa inuu arrinta dhexdhexaad ka noqdo aanu cidna garabka saarin waliba uu sheego waxyaabaha kale qarsoon ee uu isagu qarinayo waxa uu sheegay in fiidiyoyo badan uu hayo Imraan Qaraami haddaba sababaha ay ku soo galeen iyo sidii ay wax u dhaceenba inuu daacadda ka sheego inaanu cid gaara garabka saarin cid gaarana soo dhaweeyay uu daacad ka noqdo uu dhexdhexaadna ka noqdo waayo waa dadka farakutiriska ee la isku haleyn karo balse Baas ayaa beeniyay haba yaraatee inaanay waxba ka jirin hadallada uu soo dhigay kuteenna ay tahay haddaba runta kamaad sheegin buu xaqiiqadana kamaad hadline waxaad u aragnaa buu yiri sheekadaadu inay dhinac ka raran tahay haddaba waxyaabo badan ayaynu isweydaarsan wixii aan isweydaarsanno dhan badka keen waxna haambaynin sidii Ilaahay ku ogyahayna wax walba u soo bandhigay sidaynu wada hadalay balse aan soo jarjarin hadallada aan kugu yiri qaarna ha ka imanin soo wada dhamaystir soona geli haddaba intaynu fiideo la kulmayna waxaan kaga tagayaa aniga muumin abraas assalaamu calaykum